شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزره شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaanu ku dhex jirnaa duruusteeni ramadaaniyada heeday annagoo soo qaadanay dhowr darsi soo qaadanay bishii weyneed oo barakaysneed oo ramadaan ayaanu ku dhex jirnaa. marka hadda darsigeenan oo kamida duruusteeni ramadaaniyada wuxuu noqonayaa darsigii 10aad ayuu noqonayaa. darsigaane annagoo duruusteeni kale ku soo qaadanay niyada iyo wamaa yustaxabu lisaa'im, niyada sida ay tahay iyo qofka saa'imkaa waxa loo suneeyo. waxaynu ku qaadanaynaa darsigeenan 10aad bacdi kamida maa yustaxabu lisaa'im, qofka sooman waxyaabaha loo suneeyo. sunnada marka la leeyahay waxaa sunno la yidhaahdaa maa yusaabu calaa ficlihaa walaa yucaaqabu calaa tarkihaa. shay haddii la falo laysku sawaabinayo ajir laga helaayo, haddii laga tagana aan laysku ciqaabin ayaa sunno la dhahaa sideedaba. wuxuu markay waajib yihiinne waajib waxaa la yidhaha isagane maa yusaabu calaa ficlihi wa yucaaqabu calaa tarkihaa la yidhaah. wax laysku sawaabinayo haddii la sameeyo ficilkiisa lala yimaado ama qowlkiisa lala yimaado, laakiin haddii laga taga laysu ciqaabayo. marka hadda waxa weeye soonka marka lagu jiro waxaa la rabaa inaan kaliya lagu ekaanin inta waajibka ah, cibaado kasta oo la sameeyana saasaa la doonayaa. marka hadda waxaa kamida waxyaabaha markaasi waxa weeye la suneeyo saxuurta ayadana waanu soo qaadanay. marka saxuurta waxyaabaha lagu saxuuranayo ayaga laftirkooda waa kala fadli badan yihiin. marka hadda waxa weeye qeyb oo markaasi suxuurti waxa lagu suxuuranayey kamid ah oo uga afdalka ah iyo waxaanu qaadanaynaa adducaau cinda alifdaar ayaa hadda darsigeenan 10aad intaasaan ku qaadanaynaa. waxaa jirta marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis oo waxa weeye anas ibnu maalik saxaabigii jaliilka ahayoo khaadimu rasuulilaahi uu ka wariyey. waa u dhahay anas kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yufdiru calىa rudabaatin qabla an yusaliya fain lam takun rudabaatun facalىa tamaraatin fain lam takun xasaa xasawaatin min maa-in. waa u dhahay anas ibnu maalik saxaabiga la yidhaahdo nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu ahay inuu ku afuraayo rudabaad ou ku afuraayo. rudab hadda maxaa la yidhaahdaa? waa nooc oo waxa weeye timirta kamid a, laakiin timirtu markay jilicsan tahay qabla intaan waxa weeye aan la keenin meesha jariinka la yidhaahdo oo aan timirta la soo goyn. hadda dalkeenan soomaaliya annaga idoo rudaba nooma timaado, laakiin rudabka waxaa laga helayaa meesha ay ka baxaysaa laga helayaa. timirti markii ay jilicsan tahay oo sida hadda masalanba waddankeena waxaa ka baxa geley iyo masego iyo waxaasaa ka baxa, ayaga laftirkoodu noocyaal weeyo markay habuuqa la yidhaahdo habuuqa la cunaayo markaas waxaa weeye waa nooc jilacsan weeye. ayadana sidaasoo kaleentoo timirtu waxay iska leedahay nooc jilacsan oo markaasi rudab la yidhaah. waxaa jira mid la yidhaha balax la yidhaahdo, laakiin waxaa heli karaya dadka timirtu ay u baxdo oo waxa weeye waddanka timirtu ay ka baxaysa jooga ayaa heli karaya. markay noocaas tahay waa nooca markaasi ugu sii fadli badan, cunitaanka bani aadamkani ugu sii khayr badan weeye. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asaga wuxuu joogay meeshii timirtu ay ka baxaysayoo arladaas oo xijaas dadka joogaahu waxa weeye
waa dad aad iyo aad timirta noloshoodo dhanba ay timirta xooggeedu ku tiirsan tahay. marka timirta marka rudabkaas timirta jilacsan weeye ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku afuraya u dhahay. waxauna afuraya qabla an yusalliya intuusan dukanin ka hor. waxaa la rabaa markii soonka markaasi waxaa weeye qoraxdu ay dhacdo qabla almaqrib ayaa la rabaa in la afuraa loo baahan yahay. weliba waxaa la rabaa afurka in waqti la siiyo ayaa loo baahan yahay. marka waa la afurayaa salaada maqrib ka hor ayaa la afurayaa, sidaas ayaa maaragtay ahaa sunno ah. adoo weli markaasi waxa weeye sidaadi u sooman inaad maqribka gasho karaahi waaye. maxaa yeele nafti soo dhibtoohaysay waxaa la rabaa salaada maqribka iyadoo raaxaysatay oo markaasi qofkii dhibaatadii ay daysay inay gashaa loo baahan yahay. marka waxaa la rabaa meelaha lagu afuraayo iyo meelaha masaajidda iyo meelaha lagu dukanaayo waxaa la rabaa dadka xataa si tadawuca inay maaragtay u keenaan oy maaragtay waxaas lagu afuraayo ay keenaan oo lagu tabaruca ayaa loo baahan yahay. si maxaa weeye qofku ajiro uu helayaaho waxau ajirka helayaa rasuulkeena waa tou dhahay calayhi salaatu wasalaam man fadara saa'iman kaana lahu mithlu ajri saa'imi gayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay-an. waxaa marka hadda meeshaas inaad waxgeyso ajirka kuu xasilayaa wuxuu yahay oo aanu duruusteena dambe ugu tegi doono. rasuulku waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam qof oo saa'ima oo sooman qofkii afuriya qofka saa'imkaa ajirkiisii ou kaloo helayaa ayadoo qofka saa'imkaane aan laga nuqsaaninaynin ajirkiisii oo aan la dhehaynin qofkaanaa ku afuriye waa inaad sabab aad ajirkaaga wax ka siiso. ilaahay fadligiisa waasac weeye. marka meelahaasoo kaleentood waxyaabaha lagu afuraayo sida biyaha iyo cabitaanada iyo waxa weeye maaragtay timirta ay ugu muhiimsan tahay afur oo markaasi khafiifa oo fudud ayaa waxaa loo baahan yahay in la geeyo masaajidda iyo mawlacyada iyo meelaha dadku uu ku kulansan yahay oo salaada maqribka inay isugu yimaadiin ay ku dukanayaan ayaa qofka wanaagsan oo mu'minkaa waxaa laga rabaa inuu meeshaasoo kale waxgeeyo. sababtoo waxaa weeye ajirkaasuu ka helaya. waa hadda marka xadiiskaa nooga cad rasuulka calayhi salaatu salaam meesha uu ku dukanayey markaas hadda rudabka uu ku afuraayo nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu taagan yahay goobtii markaasi salaada uu ku dukanayo taagan yahay. haddana waxaa weeye xadiiska waxaa noogu cad in markaasi qabla almaqrib salaadii intaan la dukanin ka hor in loo baahan yahay in la afuro. rasuulka calayhi salaatu salaam waxa uu dhahay anas qabla an yusalliya u dhahay intuusan dukanin ka hor. taas marka waxa weeye taas inay sunno tahay oo afurkana waxa weeye in timirtaas lagu afuro gaar ahaan rudabka lagu afuro ayaa sunno ah. rasuulku waxau dhahay marka anas fa in lam takun rudabaatun fa calaa tamaraatin ou dhahay. waa isla timirti qeybaheedii haddii waxa weeye rudabaad la waayo oo wax rudaba la waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam timiryaalo isaga afuraa u dhahay. marka hadda waddankeena hadda Soomaaliya masalan ba hadda waxa weeye rudabka sida qaalibka laga heli maayo. timirtii oo lagu afuro timirtan hadda duruusteena hore ayaanu ku soo qaadanay inay ayadu afdal ay tahay in lagu afuro. hadda marka haddii la waayo ka waran marka oo rudabna la waayo timirtii noociyaasheedii haddii la waayo masalan waxau dhahay anas fa in lam takun haddaysan ahaynin timirba jirin xasaa xasawaatin min maa-in. nabigu calayhi salaatu wasalaam qarfooyin amase dhowr jeer qaadashayaal oo maaragtay dhowr jeera ayuu waxa weeye ou nabigu calayhi salaatu wasalaam qaadanayey oo biyo ayuu markaasuu ama gacantiisa ku shubanayey markaasuu saasuu cabaayey ama un koob masalan ba aad ku shubato saas ku shubato waxa weeye biyaha ayuu qaadanayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka hadda biyaha haddii waxa weeye timirta la waayo ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu wuxuu qaadanayey biyaha ayuu qaadanayey. xaswada waxaa la aljarcatu min asharaabaa la yidhaah hal mar oo wax biyo la kabadaa la yidhaah. waxaa la rabaa adiga inaad uun soonkii aad qabla intaadan salaadii dukanin soonkii inaad ka hormartood afurka hormarisaa loo baahan yahay. taasaa muhiim ah. xadiiskaas waxaa wariyey abu daawuud waxaa weeye tirmidina waa wariyey sanadkiisuna sanad xasana weeye. weliba hadda riwaayad ziyaadaah oo imaamu tirmidi uu leeyahay
waxau dhahay anas kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama yufdiru fi shitaa'i calaa tamaraatin wa fi sayfi cala almaa'i. xadiiskaa hadda ziyaadadaanu faa'iiday iska leeda, bal u fiirsa hadda. anas waxau dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay waktiga markaasi xagaaga la joogo, xagayga marka la joogo, xagaagu waxa weye waa qabow yahay, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku afuraya timirow ku afuraaye. jiilaalka marka la joogo kulaylku jirane wuxuu ku afuraya biyo ku afuraaye. sababtoo ah waxa saas loo leeyahay nafta waxa weeye markaas waxay u baahan tahay markii ramadaanku kulayl uu yahay. ramadaan sidiisaba ramal ayuu ka yimidayoo waa kulayl. sida qaalibka wadamadaas wuxuu ku soo aadi jiray bishaan ramadaan kulaylay ku soo aadi jirtay. ramalka sidiisaba waxaa la dhahaa xagga luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa shayga kulaylkaa la yidhaahdaa. marka ramadaan saasaa loogugu baxshayo meeshaasaa waxa weeye ay ka timidayoo kulaylo u badnaa jiriyey. laakiin mararka qaarkood hadday dhacdo waxaa dhacda hadda inuu xagay oo ku soo aado ayaa dhacaysa. sida hadda ramadaanadan waxa weeye hadda xagay ayay ku soo aadaan. xagayga hadda ramadaanka hadda aynu ku jirno oo hadda aynu taaganahay ramadaan wuxuu kusoo aaday xagaagu kusoo aaday. dadka marka waxaa laga yaabaa sida qaalibka aysan oon uusan haynin. marka haddii aan oon uusan jirin waxaa la rabaa in timirta lagu afuraa loo baahan yahay. markaan hadda waxa weeye jiilaalka ay tahane oo jiilaal uu ku soo aado waxa weeye nabigu calayhi salaatu salaam biyahu ku afuraaye. sababtoo ah baahida markaas nabiga calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa markaasi baahida ay qabaan ayaa markaasaa biyaha ah. dadka waa ooman yahay. dadka masalanba hadda masalanba camalka ka shaqeeyo ama beeraha ka shaqeeya amba xoolaha raaca ama maaragtay shaqooyinka qabta oo maaragtay xamaaliga iyo dadka shaqeeya ama socod badan socda, waxaa laga yaabaa haddii la gaaro maqribka inay ooman yihiin oo aad ay u ooman yihiin. marka hadday ooman yihiin laba arrimood hadday samay karaan waa samay karaan. timirtu hadda sideedii fadligeedii waa taagan yahay. marka haddii timirta ina ku afuro oo markaasi timirta dhuuntiisa ay marayso waxa weeye waa ku afuri kariyaa kabacdi biyaha u cabi karaa. laakiin haddii waxaa dhici karta waktigaa nabigu calayhi salaatu salaam jiilaalka ah oo biyaha uu ku afuraayo timirtuba inaysan markaasi dhuuntiisa ka gudbaynin oo waxa weeye markaad ooman tahay shay markaasi cuntaahoo dhacaamahoo caadiya ma cuni kartid sida la jaribayoo la ogyahay. markaas waxaa fadli badnaahaya biyihi ayaa fadli badnaahaya. maxaa yeele baahida qofka ayay markaasay ku xiran tahayo waxa weeye nabigu calayhi salaatu salaam waktigaas biyaha ayaa markaasu waxa weye uu ku afuri jiray. marka xadiiska macnihiisu waxa weeye nabigu calayhi salaatu salaam rudabaada u ku afuri jiray. haddii rudabaab la waayo timirow ku afuri jiray. haddii la waayo biyow ku afuri jiray. nabigu calayhi salaatu salaam ifdaarkiisa sida ugu badan afurkiisa markii jiilaalka la joogane waxau ahay biyaha ayuu ahay. maxaa yeele biyuhu xaraarada ama kulaylka qofka ku jira ayay baaba-ayaan, jirkana way waraabinayaan. marka xadiiskan hadda macnihiisu waxa weeye waxaa la suneeyaa suxuur ayaa la suneeyaa. waxaa kaloo markaasi jirta suxuurkuna inuu ahaado qubayl alfajri, fajarka ka hor inuu ahaadaa la rabaa, wax u dhow weliba oo fajarka u dhow. hore xadiiseyn aan kusoo qaadanay. haddana waxaa la rabaa shay mac inuu ahaado amase macaanu ku dhex jirto. sida waxa weeye loo suneeyo afurka in la dedejiyo haddii qoraxda quruubkeeda ama dhicitaankeeda uu xaqiiqoobo. marka sidaasaa loo baahan yahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu maaragtay u afuri jiray. intaas hadda markaas aan sheegayno maa yustaxabu lisaa'im weye. haddii hadda qofku waxyaabo kale ou ku afuro oo raashin kale ou ku afuro ama biyo macaan oo markaasi masalanba sokor iyo wax lagu daray ou ku afuro afurki waa noqonaysaa. laakiin hadda waxaa markaa aan ka hadlaynay sida markaasi waxa weeye shayga lagu afuraayo kiisa afdalka ah ayaa markaasi aan ka hadlaynay iyadoo laga qaadanayo ficilkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyadoo laga qaadanayo. sidaasaa marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay raacaan oo asartii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo qowlkiisi iyo ficilkiisi in la raaco. maxaa yeele diinteenna wax kasta oo markaasi khayra, wax kasta oo caafimaada,
wax kasta oo waxa weeye maaragtay insaanka adduunkiisa aakhiradiisa anfacaya ayada ay ku jiraan. maxaa yeele hadda arrintaas xataa waxa weeye xagga dibiga caafimaadka xaggiisa xataa wax badan ayaa ku jira. maxaa yeele dadka ahlu dibiga ah waxay sheegeen timirtan waxa loogu afuraayo xigmada ka dambaysa waxaa la yidhaahdaa qofku maanta hadduu sooman yahay oo haddana weliba xoogaa qorax ay taabato ama gaaja ay taabato waxaa ka tegaya indhihiisa wax yaroo nuura ayaa ka tegaya. nuurka indhihiisaa laciifaya. nuurkaas markuu laciifo waxa nuurkaas soo dedeji karoo meeshiisa indhaha ku soo celi kara waa timirtaa la yidhi. marka xataa faa'iidadaas ayaa ku jirto noocoo dibi ahaa ku jira. tamarta laftirkeeda in la iska badiyo lama rabo, qadar oo markaasi kooban ayaa markaasaa laga cunayaa. waxaa jira haddaba dad waxaa jira saa'imiin ah laakiin timirtu ay dhibaysana way jiraan. dadkaas waxaa ka mid ah dadka sokorta qaba ayaa ka mid ah, oo haddii masalan maadda timir oo cuno timirta sokorteeda zaa'ida weeye, inkastoo shay dabiiciya ay tahay haddana waxaa weeye sokortu waa ay kicinaysaa, sokortu waa ku siyaadaysaa. qofkaas haddii masalanba waxaa weye madaradaas oo kale uga imaahayso isla markaasna uu sooman yahay, sokortina inay ziyaado ay ku noqoto ay dhici karayso oo meesha asaga dhib uu kasoo gelaayo, waxa weeye biyaha ayuu ku afurayaa iyo waxyaabihii kaleentood oo markaasi uu heli karo ayuu ku afurayaa. la dhihi maayo masalan ba hadda timirtan waxa loogu afuraaye qaalibiyatu naas, dadka sida qaalibka waxa weeye markaasi cudurkaas ma qabaan. laakiin dadka cudurkaas qaba waa nooc oo markaasi nawaadirta kamid a, ama inkastoo zaminkan hadda la joogo oo markaasi arrintaasu ay badan tahay, laakiin cusuurto horo arrintaas waa ay yaraa jirtay. marka dadka sidaasa ayagu waxa weeye timirta way ka taxadirayaan iyo waxyaabaha macaanka ahoo kaleentood oo dhici karayso in markaasi maralkooda uu ku siyaado, ayagana waxa weeye markaasi looma sunnayhaayo. maxaa yeela shayga laysu sunnayhaayo shay markaasi faa'iidale ayaa loola jeedaahoo naftu waxa weeye ay raaxo ka helayso, jirkuna waxa weeye oo ku caafimaadayo, waxaasaa loola jeedaa. laakiin haddii waxa weeye taas aysan jirin qofkan markaasi macduurow noqonayaa. marka waxyaabahaas waa looga cudrayaa. ilaan soonkaba haddii waxa weye qofka macdira ay ku timaado, soonkii markaasi waa laga reebay, waa laga cafiyey. oo waxa weeye hadduu musaafir yahay iyo hadduu mariil yahay, soonkii markaasi waxa weye waa iska cunayaa, kabacdi u iska soo qalaynayaa. waa ku tegi doonaa haweenta hadday xaamilo tahay oo markaasi xamligii markaasi ayadii nafteeda u dhibtoohayso, ama weladka ama ilmaha uurkeeda ku jira u dhibtoohayso, ama waxa weeye ay tahay ay murdico ay tahay ilma nuujinayso oo nafteeda ay u dhibtooto ama owlaadda ay u dhibtooto, shareecadu waxay u fasaxaysaa inay iska cunto soonkaasna iska soo qalayso, inkastoon dersi gaara taas aynu ku qaadan doono. marka waxyaabaha rukhastaahu sidaasay u jiraano shareecadeenu waxa weeye shareecad samxaa oo dhib yar weeye. ilaahay subxaanahu watacaala diinta noogama dhigin diimihii hore oo markaasi culayska badan iska lahay. diinteenu diinu samxa ayaa loo yidhaha, waa diin oo maaragtay aad iyo aad maaragtay u fudud. marka waxa weeye darsigeeni tobanaad annagoo kusoo qaadanay maa yustaxabu lisaa'im, intaas ayuu noogu egyahay. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزر. فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام